بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إلهي بمهد إسكال ولا الذي دقالي أصحابتي إذا شرفت له مركز الدنيا ذكا جوكتان. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. walaalkayga qaaliga ah oo adduunyada aynu ku noolnahay xayaato dhow ayaa lagu tilmaamaa, nolol abadiya ma lahan. xayaatada nolosha aan ku jirno waa xayaato aad iyo aad u qariib ah waaye. nolosha dhabta ah way kaa dambaysaa. allah subxaanahu wa tacaala aayado fara badan buu ku sheegay, salawaatullaahi wasalaamu calayhin, axaadiis badan buu ku sheegay. walaalkayga qaaliga ah waxaan rabaa inaan kula wadaago qiso yar oo cajiib ah. nabiyullaahi yacquub calayhi salaam waxaa u iman jiray, soo booqan jiray malakul mowt. sida caadiga ah ambiyada, malaa'igta iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala malagyadiisa way soo booqan jireen. wuu soo booqan jiray, wuu la sheekaysan jiray, wuu iska tegi jiray. maalin maalmaha ka mida nabiyullaahi yacquub calayhi salaam ayuu wuxuu malakul mowtka ku yidhi: yaa malakul mowt, innii as'aluka xaajaan ku weydiisanayaa, amuur baan ku weydiisanayaa, favor ii samey buu ku yidhi, maadaama aad mar walba ii timaado saaxiibkayga tahay. tuclinunii idaa xadara awaanu ajali, waxaan kaa codsanayaa buu yidhi inaad ii sheegto xilliga muddadayda ay soo dhowaato oo waqtigayga uu gali doono oo aan dhima raba inaad ii sheegto. subxaana allahi casa wajal, allahu akbar. favor buu malakumowd weydiisanayaa, wuxuuna weydiisanayaa xilliguu dhigan lahaa, uu dhiman lahaa inuu usii sheega. subxaana allahi casa wajal. malakul mowdki muxuu ku yidhi: yaa yacquub, sa ursilu ilayka rasuulayni aw halaatha. yacquubow, waxaan kuu soo diri doonaa buu yidhi 2 fariin ama 3 fariin intuuna waqtigaaga gelin. muddaa ka soo wareegtay, sidii ku kala tageen, maadaama uu soo booqan jiray maalin maalmaha ka mid haddana soo booqday. subxaana allahi casa wajal. nabiyullaahi yacquub baa malakul mowtka wuxuu ku yidhi: yaa malakul mowt, azaa'irun ji'ta am liqabdi ruuxii. sida caadiga aa ii soo booqan jirtay maa ii soo booqato oo igu timaaday, mase maanta qamuudkayga galuu dhahay. maanta wuxuu dhahay cajalkaygii maa soo xirxirmay, mase sidaa igu soo booqan jirtaa igu timaaday. subxaana allahi casa wajal, allahu akbar. malakul mowtki baa wuxuu ku yidhi: yaa yacquub, liqalbi ruuxik, maanta waxaan u socdaa buu yidhi tan yar inaan kaa qaado. maanta ruuxaagaa la ii soo diray buu yidhi. subxaana allahi casa wajal. nabiyullaahi yacquub calayhi salaam ballan horaa ninkan u dhexaysay, ballantina ma dareensana in loo soo diray in kale. wuxuu tuhunsan yahay ballamihii inayna soo gaarin. malag inuu ballan kaaga baxana wax qariib ah waay. subxaana allahi casa wajal. nabiyullaahi yacquub markaas wuxuu ku yidhi: amaa wacadtanii annaka satursilu ilaya rasuulayni aw halaatha. so ima aadan ballan qaadin inaad ii soo diraysa 2 fariin ama 3 fariin, maxaa kugu dhacay? waaba iska timaaday adigoo ruuxayga raadinaya, fariimihiina aawe. malakul mowtki ayaa wuxuu ku yidhi: yaa yacquub, innii qad facaltu daalik. yacquubow, ballantii waan fuliyey buu yidhi, fariimihiina waan kuu soo diray. bayaadu shacarika bacda sawaadih, tintaada madoobeyd markay madowgii intay ka tagtay ee ciro isu bedeshay, fariintii ugu horreysaan kuu soo diray buu yidhi yacquub. subxaana allahi casa wajal. wa dicfi badanika bacda quwatih, jirkaagii aad adkaa, xoogga ahaa ee aad 5 geed ka boodi jirtay, markuu la ciifay fariintii labaadaan kuu soo diray buu yidhi. subxaana allahi casa wajal. subxaana allah, subxaana allah. وانحلاء جسمك قبل استقامته. سبحان الله. وانحلاء جسمك بعد استقامته. jirkaagii toosnaa markuu soo gutay, oo sida hangoolkaad u soo godatay qofka markuu waayeelo wuu soo gutaa, fariintii 3aadaan kuu soo diray buu yidhi. subxaana allahi casa wajal. yaa yacquub, haadihi rusulii ilaa bani aadama qabla almowt. fariimahan insaanka u soo diray, bani aadamka aan u soo diray intaanan ruuxa ka soo qaadin weeyu jir 3. subxaana allahi casa wajal. walaalkayow, hinti baa lagu siiyey, macnaha waxaa lagu siiyey qashaa lagu siiyey. qashaa lagu siiyey bayaadu shacarika bacda sawaadih,
tintaadu hadday soo madoobaad muddo aad noolayd oo ciro ay soo noqoto oo ciradu weliba mar la rabo ciro kaaga soo baxaysa 9 sanadoo jira 10 sanadoo jira cirada waqtigeeda maasha Allah alla ku keenay tan kale cirada qofka inay ka soo baxdo waa bishaaro waa subhanallah xadiis salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu leeyahay jira man shayba fil islaami qofka aswa islaama ciro ka soo baxay islaamnimada qiyaamaha nuur ay u noqotaa tinta cirada subhanallah azza wa jalla hada ilaahi subhanahu wa ta'ala fadligiisa waa qofka markii dhalinyaranimada intuu ka gudbo kontamiyada uu gala jirka uu soo yarahay jijicis wadad ku socota subhanallah safarkaaga waa dhow yahay haddaad soo gadato oo dee markii hore nin iska boodaya socdaad ahayda bakoorad intaad soo qaadato dee ay noqoto u shaadis lugtaadii saddexaad hadda waa lagu soo hayaa maasha Allah ta'ala caafimaad kasta baad qabtid haddaad doonto laakiin qisada waxaan kugu soo tabiyay baraarug subhanallah azza wa jalla waana sheeko dhex martay nabi Allah yacquub iyo malakul maut walaalkayga khaaliga ahoo malakul maut saddexdaas ayuu usoo diraa fariin dadka bayaadu shacridika bacda sawaadih وضعف بدنك بعد قوته وانحلاء جسمك بعد استقامته هذا هو رسول يا يعقوب إلى بني آدم قبل الموت ولكن إن شاء الله تعالى قف مسلم فحلوق باهي أن يكون مسلما في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل دقيقة سبحان الله عز وجل متى يأتي ملك الموت ذاك قيب عند الله سبحان الله عز وجل تاس إلهي بأوك لكن wuxuu kaaga dhow yahay malakul mawta min shiraaki naclatika subhanallah kabtaada halka ay suulka ka hayso dacaskaaga labada suul meesha aad gariso iyo kabta inta isu jiraan malakul mawtka kaaga dhow yahay subhanallah azza wa jalla walaalkayo naftayda iyo naftaada waxaan ku baraarujinayaa salawaatullaahi wa salaamu calayhi xadiidkiisa ahaa tadakkaru haadi min ladaat xasuusta oo xasuusta macaan kala gooyaha xasuustiisa badiya macaan kala gooyaha waa malakul mawtka hooyo iyo wiilkeed wiil iyo aabihiis xaas iyo ninkeed gabadh iyo walaad ninkeedii macaan kala gooya waaye xasuustiisa badiya xasuustiisa haddaad badiso insha Allah wuxuu kaa maqaldamaayo ilaahay macaasin doonta subhanallah ummadana way kaa nabadgeli doontaa subhanallah azza wa jalla bacdaba maanta dunida ku nool society-geena iyo bulshadeena aad wallahi qofka aadaman arkaynin aad islahaynba qofkan geeri baaba ka dambaysa subhanallah azza wa jalla geerida haba kugu timaadee maxaa kaasii horeeya nolol xayaato ah oo abadiye ah oo aanan weligeed dhammaanaynin laa tantahi subhanallah way bilaabanaysaa mana dhammaanayso axadu saalixiin waxaa laga sheegay inuu leeyahay low annana mitna wastarixna lakaana khayran lana walaakina idaa mitna bucithna wa idaa bucithna xusibna wa idaa xusibna ima fi ljannati wa ima fi nnaar war haddaynu iska dhiman lahayn oo nala xabaali lahaa oo filinkeennaba saa u ku dhammaan lahaa ku burburi lahaa khayr baan taagnaan lahayn buu leeyahay ninka saalixa ah laakiin haddaynu dhimanno waana la xabaalo waana lasoo bixinayaa mabcuuth bucithna waana lasoo saarayaa wa idaa bucithna xusibna markiina lasoo saarana waana la xisaabaya buu leeyahay subxaana allahi caza wajalla oo xisaab ka dambe maxaa dhacaya ima fi ljannati wa ima fi nnaar subxaana allahi caza wajalla subxaana allah tanbiihaad cajiib ah qofka iimaan leh oo ilaahay subxaana wa tacaala iimaan rabbi u hubeeyey dhagaysta qisooyinka yaryar iyo xadiidtan u dhagaysta subxaana allah insha allahu adiga ay ku anfacaysaa walaalaha kale aad gudbisan way anfacaysaa allah yaxfadak wayxibak wayarcaak alla dartii ayaan kuu jecelahay waqtigiigana kuugula qaatay fariintii aniga waan kusoo gudbiyey alla isoo gaarsiiyey adigana saaxiibadaa la gaarsiiyey adoo ka duulaya xadiidka salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu yidhi ballaqii cannii walow aaya balliquu cannii walow aaya aayadna allah ka dhigay ummaddan waxuu iga gaarsiiyey bal wax kuu socon doona ilaa qiyaami saaca inta kelibka uu wareegay ajirkiisa aad heli doonto insha allah walaaladaa kala la wadaag allah yaxfadak wayxibak wayarcaak waa walaalka oo hawada kaasoo salaamaya ilaahay dartii kuu jecel inta kugu jirta facebooka kelibkani gaarsii laga yaaba mid qaafila inuu ku baraarugo laga yaaba mid masaakiina inuu cilmi ka dhaxlo laga yaaba mid jaahila insha allah subxaana ilaahay inuu cilmi ku siiyo adigana ajirkeeda iyo sawaabteeda leedahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaan hawada dib kaala kulmaayo kelibyo badan oo noocan aan kusoo gudbin doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh